I have 5 minutes. Come on, guys. Yeah, not tie them. They have to come to my place to visit me. I just have 5 minutes. You are moving out. Go out. No one need you. Somaliland iyo Somalia yaa just waaba halkii magacay wataane qoladan walaalaheena ah hadday rabaan inay iska baxaan ay wadanka ay ka go-aanba ingiriiska markuu qaybinayo maxaa la dhahaa Djibouti maxaa la dhahaa ogaadenia u baxshay faransiis markuu dhulkaas bixinayene cafar an ciisa u baxshay Djibouti la baxay kuwaanba Ethiopia lagu daro iska daa NFD lagu daray oo waxaa lagu daray Somali galbeed Somali galbeed waa ogaadenia NFD na waa waqooyi bari Kenya sorry marka walaalaheen magacana la wata Somaliland aan dhahdo Somaliland dhulkii Soomaaliya la taagan tahay ilaa hadda just you have to come other name kaasoo kuu bedeli kara macnaha aad dood kula tegi karto dad aad isku dhaqan isku diin maxaa la dhahaa isku midab aynan waxba ku kala duwaneyn sidee lagu kala tegayaa ama dhinac aad ugu raacaysaa oo dhinac lagaaga aadaya macquul maaha in adeer waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waxaa waaye waa Soomaaliya waxa la dhahayo Hebelowland la dhahayo ma jiraan just waxaa la baxdaan just Hargeysa la baxa soo caasimadiinana Burca ka dhigtaa which country are you coming from Hargeysa is a country yes it's a country so magaalada sarta Hargeysa la dhaho ka wada dhiga wadanka oo dhan sida Djibouti oo kale Djibouti la baxday markaas xoogaa laakiin mid kale haddii aad rabtid inaad ictiraaf heshid you have to talk to me kaasaan wataa calankaas meeshii suray adi waxaan naga go-in wallahi inaysan qolo kale kuu goyneyn aan heshiino aan isku soo dhawaano aan maxaa la dhahaa ka wada hadalno abti Rwanda bafeeri Rwanda dadkeeda ayada is xasuuqay shalay kuwii la xasuuqay ee dhulka lala galay ayaa maanta madaxweyne ah qoladii kalena waxaa lagu xukumay sanad walba markii oo baroordiiqda la gaaro inay soo baxaan ee matxafyada imaadaan ee dadkii ay dileen bangadaha ay ku laayeen inay soo baroordiiqaan ay imaadaan waxaa jira nin reerkiisoo dhan la laayay oo 9 ka koobnaa keligiisa ka soo haray cidda laysana way kasoo horjeedaa in Rwanda ka jirtaa way kasoo horjeedaa ayadoo ay kasoo horjeedo uusan waxba u qabin cuqdadna u qaadin wayna dad wada dhashay oo waxaa waaye waxay noqdeen oo fariyo frantigeed laakiin adeer waana kala qaybinaya dad baana kala qaybinaya dad baa waxaa waaye maxaa la dhahaa jaasuus ah oo Soomaali ah oo dhexdeena ku jira oo ummadii qaribaya ummadii barbalam iyo dhibaato u geysanaya so waxaa loo baahan yahay in aad ka fakartaan aayahaaga iyo noloshaada meesha ay aadayso Djibouti cafran ciisa lahay ogaadenia aan lahayba okay laakiin adiga maxaa lagu dhigi waaye Isaaqland laguma dhihin Isaaqland because
minority majority inaad ku tahay lamaba ogaba. midda kale adi ima xaqiiji kartid aniga inaan ka imaaday ee Somaliland, ima xaqiiji kartid. just markaa lahjadeyda fiirisid aa is leedahay ninkan wuxuu ka yimid koonfurta, laakiin no one knows inaan ku dhashay Hargeysa, inaan ku dhashay Barco, inaan ku dhashay Berbera. No one knows. So just markaa lahjadeyda fiirisid waxaa leedahay kan reer Afgooy leb waaye, reer Afgooy maxaa inta noo keenay ya fahanta. laakiin waxaa waaye Soomaaliya waa dal madax banaan, calankiisu ka babanayo ee United Nationka, la aqoonsan yahay. If you need to be alone, so inaani la soo hadashaa, ani adina fadhi yeelano, ani adina qolo kale noo timaado na kala gar qaado. taas waxaa waaye that's a shame, wax laga xumaado waaye. marka waxaa loo baahan yahay haddii aan rabno inaan ani adiga heshiino oo wax wada qabsi gaarno, waxaa loo baahan yahay inaan ani ada meel wada tagno, wada fadhiisano. Hargeysa igu qaabil, aan fadhiisto, kula sheekeysto, waxaad tabanayso aan kaa xaal mariyo. okay, diyaaradda Hargeysa ka kacday waxay duqeysay Hargeysa. look, diyaaradda waxay ka kacday Hargeysa, markay kacaysa u sacabtumaysa, laakiin markay kugu soo noqotaa aragtay inay isla meeshii un ay duqeysay. soo yay duqeynaysaa, waxa ay duqeynayso waa ciidan dagaal soo qaaday ay duqeynaysaa. so haddii xabad la tuuro waxaa waaye ciidan iyo shacabba way laysaa. xabaddu ma taqaana kaasaa cadow kaas aad ma fahanta saaxiib, qof ima taaban, laakiin waxaa waaye dad baan tusi rabaa waxa jira abaayo nadra. dad baa xoogaa luuqa igu soo karbaashay, dadkaasaa rabaa marka inaan xaqiiqda u sheego. marka waxaan leeyahay diyaaradda adig isla dhulkaagi ka kacday, isla dhulkaagi rushaysay. so waa Soomaali wax hadda isku haysano waay qabyaalada, dhibaatada, barbalemka Soomaaliya hadda ma aragtay qolo ka xoog badisay, qolo laandheero la dhihi karo hadda ma jirtaa, ma jirto. ani markaa isoo weerartid dadaa iga leynay, ana waan ku weeraraa dadaan kaa leynaa. jugjug meeshaada joog waay, waa isdagaalnay. haye qolo walba waxay xoog ku leedahay meesha ayada ay markaas taagan tahay ama ay joogto ay xoog ku leedahay. mathalan for example Muqdisho ka soo qaad, xaafad hebel waxaa degan reer Qansaxaa degan. reer Qansax iyo maxaa la dhahaa reer Qurac markay rabaan inay reer Qansax rabaan inay weeraraan, so dadkaa duulaanay soo qaadan, dadkaasay ugu tagayaan. markay xagga tagaan la weeraro dadkaas waxa laga dil ayagan weerar celisa soo sameynaya inta dadka wadada kusoo jiraan, dadka lakasii leynayan. meeshaas yaa ku dhex baaba-aya. mid adig kula dhasho in adeerka ah aan dagaal ku jirin, mid adig oo habreerta aan dagaal ku jirin, mid waxaa la lahaa oo gurigiisa iska joogo aan waxba dhibaato haysan. intaba waxaa waaye dagaalkii waa ku le-anayaan. marka waxaan leeyahay walaalahay, Soomaaliya waddan la dhahaa jiro ee Somaliland. markaa dhahdid just you talking about still my land, still you are talking about my land because you say Somaliland, that's my land. Somali, I'm a Somali, land waa dhulki. so waxaa loo baahan yahay inaad magac kale la timaadid oo magac kale aad la baxdid. markaas dood ya hooyaday adna aadan, waxaan leeyahay hooyo macaan, maamo weynaad tahay. xilligii waxaa la joogaa nasan lahayd, tusbax aad qaadan lahayd, aada nasan lahayd, wiilishaaday ku adeegi lahaayeen. ya hooyoy waa intaad soo dadaali karto, waa soo dadaashay, iskaga naso. ya ha lagu adeego, dakhtaradaa tahay, dad badan wax soo baray, abaal lagaaga hayo. Soomaaliya oo dhan ay abaal kaaga hayso, iskuulkii iyo jaamacaddii waxa aad leedahay oo dhan. ya qolo keliya wax kama baratee, Soomaali weyn oo dhan wax ka barata. dushaa loogu yimaadaa, meel walbaa loogu yimaadaa, meel walba waxaa waa shanta dhinaca Soomaaliya loogu yimaadaa. marka waxaa leeyahay maama adna Ismaaciil, hooyo macaan, iska naso,
xilligaan nasal laheeda aa la joogaa. muuse handaraabna waxaan leeyahay adeer muqdisho wax kuguma haysee, dhibaatana kuguma haysee, waxaan ku leeyahay maamul goboleedkaaga iska wado, hawshaada wado, waxaa waaye shaqooyinkaaga waxaaga iska qabso. laakiin farmaajo kan waay, farmaajo dad maba caaya beas, dadna wax ma dhaho, la aamusan yahay qoraal bes, warqad wiifeysa ada ku imaahayso, ya warqad wiifeysa ku imaahayso oo gudbeyle bes, because waxaa waaye soomaaliya waa wadan stability leh, kala dambeyn jirto, waxaydun hadda ay iyadoo burbursaneed ay soo tooseyso, maxaa la dhahaa wax walbana ay hagaaga ay toosi doonaan. asalaamu calaykum. السلام ورحمة الله وبركاته. waa ku salaam walaalkay, seeta وكا قالي ولا لكي قالي ساتا هذيو. alxamdulilah aada u fiicana walaaladana. soo dhawow, barnaamij yaraan ka hadlayo oo somaliland ah. marka هيا soomaali kala qaybsanaanteedu wax faa'iidaa ma noogu jirtaa? سومالي ما حك هلا يسي أول يقدر بقيرت. somaliland iyo labadan beri waxyaalaha taaganaan ka hadlayo. حتى أنا هذا سوق على سوشيال ميديا. social media hadda ma soo gashay oo nin hurdaa tahay markaas ها. waa وكور hurdaysaa. قبل يقدر بقرسينيو. ها هرد والله إن وحاجة قدام بس 19 كي أول 100 ملاس هذا سوق عليه ورك دم يقدر بقي ساحب. بقرطوية تاعي. maalmahana waxaa jiray dowladda ingiriiska xildhibaano ka mid ah inay ay ictiraaf u raadinayeen somaliland waddan la dhaho. صح. marka waddankaas ma taqaana meesha ku yaal? مية. أنا مقدوش اللي أقانا بس. muqdisho waa caasimadii soomaaliya, laakiin somaliland still dhulkii soomaaliya la sheegayaan, ma fahamti? laakiin ictiraafay rabaan. soomaaliya waana xasuuqday dheheen, muqdisho wayna xasuuqday, muqdisho dhibaata inoo geysa. أديك الصومالي لا ما تاي أم صومالي إن كونفر باتاي من صومالي مقدشو باتاي من صومالي تاي قبسن تاي. ani soomaali baan nahay, dhulka jumhuuriyadda soomaaliya la isku dhaho aan ka tirsanahay. صح لا كتر سنات شنت صومالي بالله شنت صومالي بالله شنت يا كتر تاي مرك إن أم صومالي لان أم صومالي هذا أساس. shanta iska dhaaf adiga, dhulka jumhuuriyadda soomaaliya intay u taqaanaaday. والله أنا هذا دوس جمهورية دن أول هذا لا هذا أديك واحد اعتراف بالرادنا يا ساس باجرتو وحبا شيء يسموك هذا كاجي جباب لكن وحبا ما يشيء يسدب. barnaamij kabel lama socotidba, waxaa waaye waxaa kuu sheegi lahaa hadda maadan fahmin. ma taqaanaa su-aasha ku weydiinaya, ma taqaanaa dhulka la isku yiraahdo jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya? والله أنا صومالي لا مقلة تاس جمهورية الفدرالية صومالي لا تاس صومالي تواسكمتك شنت صومالي أهات أم بس توتا هذاك إفائدة وإفائدة نسا أنا وحي أنك قرنا وكوشة يا سما لكن هذا قدرت احتراف رادنا يبقى أيوة هذا إشي جيس دت كاز ما إيش يقدر بقرصيد dadka ictiraafka raadinaya somaliland allaha. مرك هذيك الصومالي لا مقصود جدا مرك ma ka soo jeedo, waa ka soo horjeeda. هاي ana soomaaliya reer muqdisho ah, ما شاء الله تبارك الله هاي waxaan ka soo horjeedaa wax la dhaho ictiraaf inuusan jirin. نعم هاي maxaa la dhahaa jumhuuriyadda federaalka soomaaliya inta la isku dhahana waxaa waaye markii laga reebo soomaali galbeed oo etoobiya haysato oo dhul xoog lagu haysta uu yahay, jabuuti oo go'day oo goonigeed u go'day, iyo nfd oo soomaali kenya ah صح oo kenya ay haysato. markii laga reebo inta soo hartay ah waxaa la isku dhahaa jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. صح marka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya qayb ka mid ah waxay doonaysaa in ay soomaaliya kasii go'do ayadoo 3 maqneed tii afraad rabta inay go'do.
waxaa qaaba fahansiyaan waaye yaa ninkan caanashaah tuurnio aa dhahda ninkan waa ku fahmi waaye miya soo qabso dee soo qabso dhowr daqiiqa haystaa shaqadeeda aadi lahaay ya marka waxaan leeyahay one guest from where warheede she man hey man wani ninkan iyo markuu soo galay dadkii dhanba way ka carareen ma dhowr iyo toban qof ku daawanaysay oo markuu ku yiri waxba garan maayo dadkii dhanba way ka carareen ma garan ninku waxa fahmi maayo ma aqaan waxa ka qaldan waa fahmi waayo maanta ma waxa ka hadlaysay nimankii Soomaaliland ha nimankii aan ka hadlaayo adna Ismaaciil iyo dad hadlaayo adna Ismaaciil oo laga been sheegay dhahayso iyo dad Facebook magaceeda ku qaraabanaya sheeganayo dadka isku diraayo maxay leeyihiin de xijaab hala tuuray dhahdeen si aan tiraaf weyn subhanallah dadkan Soomaalidu waa dad waxa waay moogtahay meel fiyuska meel ka raadinayo anu waa ku sheegaya Somaliland waxay ku goy karaysaa waa afar waxyaalood afarta waxyaaloodna waxaa ka mid ah kow in midabkooda lagu cadaadinayo labo in diintooda lagu cadaadinayo saddex in luuqadooda lagu cadaadinayo afar inay ka helaan ogolaansho dowladda ay rabaan inay ka go'aan inay ogolaansho ka helaan waa afartaa wey adduun weynuhuna afartaas u ictiraafsan intaasna hadda intaas aa soo sheegtana laguma hayo dee laguma hayo af hadday noqoto ayagaa Soomaalida dadka Soomaaliga u dhiga diin hadday noqotana culimada wax laga bartaa reer waqooyi sax maxaan ku idhaahdaa cidna midabkooda kuma cadaadayso dee hablo qurux badan oo kaaliska araga ka dhashay sax iyo ragba marka waa adduunyadu kuma dhaco marka afartaa waxyaalood waa inay South Sudan markay kala go'aysay South Sudan waxa la yiri waa dad madow kow oo adiga madow aslanahay dhib ma lahan laakiin diintooda aan diin haysan qaarna diin haystaan maxaa la dhahaa midabkooda qaarkood lagu takooro waa sax inta way buuxiyeen shuruudii laga rabo dhan way buuxiyeen la cunsuriyeeyo waka shuruudii way buuxiyeen madaxweynihii Suudaan marka al-Bashirna uu saxiixay marka uu yiri meesha wax muuqdo oo cadayana waa roo uu ku cadaadin jiray midabkooda wuxuu ku khasbi jiray oo ku dhigi jiray Carab baatiin dhaha Carab baan oo af Carabina waa inaa ku hadashaa marka adduun weynuhu wuxuu aqoonsaday in dadka la cadaadinayo because si hadii loo fiirsho waa la cadaadin jiray sababta loo cadaadinayo waxay tahay horta dadaan diin lahayn ay ahaayeen oo wax diin aan haysan midda labaad waxay ahaayeen dad la cunsuriyeeyo marka qaabkooda la fiirsho iyo qaabka kale ee koonfurta maxaa la waqooyiga Suudaan marka la fiirsho inay kala midab duwan yihiin waxyaalo badan ay jiray عليكم السلام ولا ليبان marka waxyaalo badan aan jiro oo lagu kala duwanaa saas darteeda Suudaan اعتراف loo siiyay waana xaqiiq in اعتراف si xaq ah xaq u leeyahay laakiin dadkan isku midab aan nahay waxaan ku kala duwanahay ma jirto waxaan nahay maxaa la dad isku diina isku dhaqana isku af ah I don't know waana la xasuuqa dil wax xasuuq Rwanda way is xasuuqdee labada qabiil is xasuuqmay kala go'aan midna aan ku sheego badanaa Somaliland waxay dadka la hortimaadaayo ay dhahdaan waana la xasuuqay iyo diyaaradaana lagu laayay iyo waana la baabi'iyay iyo bay yiraahdaan Soomaa laakiin taariikhda carruurtooda uma dhigaan waxa ayagu isu geysteen ayagu inta iska laayeen ba ka tira badan waxay sheegaan naftooda moogtay burca Boora way xasuuqeen burcan ayaguna waa xasuuqeen aad bay isu laayeen ayaguna aad bay isu laayeen marka dad ayaga ilaahay Soomaaliya waxa isku dagaashab waa qabyaalada marka waxaan jeclaan lahayn 10 qof baa imika daawanaysa in reer Somaliland hadii ku jiro war soo gal waa lagu soo qabanaya ana aytamayno xaqiiqda ka hadlaaya ma xaqiiqda waa loo baahan yahay waxa meesha ugu jirnaa waa xaqiiq hadda maxaa la soo saaraa marka warkii ugu dambeeyay maxaa la soo saaraa hadda
wallahi Ethiopia way ka hadashay waxay tiri waxaan Soomaaliya ka go'in waana ka soo bixin Ethiopiana kama baxaan maxaa la dhahaa Ingiriiskana sidoo kale MB hadlaya wuxuu sheegay member of parliament kala go'itaanka Soomaaliya iyo Somaliland inay u taalo ayaga dhexdoodan ay ka wada hadlaan waxanaga noqoseeyana ma aha humanitarian ane waxa waaye waa sida adduunweynaha aan iskaga caawiyo anagana caawinaad qayb ugu qaadanayna aan ka geysanayna fahmay hadda hadalkii ugu dambeeyay wasiirka u qaabilsan Afrika uu ka hadlay oo yiri ayadana waxay tiri maxaa la dhahaa Soomaaliya iyo Somaliland waxa waaye ayaga u taala howlahooda iyo kala go'ooda isku darsanaantooda ayada u taala laakiin wixii wada shaqayn ah anaga waa la shaqaynayna dowladda dhexe ee Soomaaliya oo intaas mar hadday dhaheen maxaa kale imaanaya dad badan ba haddana dhegeysanaya waxaan ku weydiinayaa haddii Somaliland yiraahdaan waxaan rabnaa in caasimadana la siiyo ma ogolaan lahayd caasimadana waa la siinayaa diyaar maxaa la dhahaa madaxweynenimana waa la siinaa okay ma ogolaan lahayd madaxweynenimada inay qaataan caasimadda inay qaataan maxaan ku yiraahdaa wasaaradda gaashaandhigana lagu wareejiyo waayo ay maamulaan horta haddii marba caasimaddii lagu siiyey madaxweynenimana lagu siiyey wixii kaloo soo haray inaad dadka kala siisid way fiican tahay haddaba waxaan kuu sheegayaa haddii mar wasaaradda gaashaandhigana aan ku siiyo madaxweynimadana aan ku siiyo just everything is come from out waxa waaye waxaa ku wada hadlaya keliya madaxweynaha iyo wasiirka gaashaandhiga labadoodii lay ka dhaxaynaysaa wixii Soomaaliya usoo baxayna hadhow lagama warhayn karo ma fahamtay taas waa fiican in wasaaradda gaashaandhiga loo wareejiyo dadka kale gacanta laga galsho nin baa kuu soo qoraya liibaan muuse la yiraahdo ii waran fiican waa ninka macalinkayga waaye wara waan ku salaamayaa shaqaan leeyahay haye iska carab waa inoo markaa insha allah asalaamu calaykum waalaikum salaam